soo dhawow mahad xaaji cabdi good oo ah mulkiilaha sharikada Magan Taxis oo ah sharikad gaadiidka ka shaqeysa oo gawaadhi badan oo boqolaal gaadhisa mahad marka hore waxaad nooga warantaa sida uu idin saameeyay sharikadiina gaadiidka dagaalkan ka dhacaya bariga dhexe Abdurrahmaan waa ku salaamaya galab wanaagsan wallahi de waxaanu ku jirnaa aanu galnay adag shidaalkii cirku maraya 2 week ka hor litarka shidaalka Ingiriiska wuxuu ahaa Guinea iyo 40 senti maantana waxa uu dhaafay Guinea iyo 60 senti marka waa xaalad cirka maraysa laakiin mahadow waad ogtay shidaalku haddana waa suuqyada markaad eegto in wararka BBC sidoo kale waa adiga arkay waxa la oranayaa maanta kor buu kacay shalayna hoos buu dhacay marka shirkadahan batroolayaasha ee batroolka idinka iibinaya iyagu qiimaha sidee ka dhigayaan qiimaha newska ka arkaan horta badidoodu waxay weeyaan waa qolo danaystayaalo oo waxa la yiraahdaa opportunities markay wax waro xun maqlaanba way door sentibay litarkii ku darayaan xagga dawladdu mahado iyagu dawladdu talaabo ma ka qaaday in shidaalkii oo la leeyahay suuqa hadana uu jabay hadana waad aragtay shidaalkii uu sii qaaliyoobay wallahi dawladdu waa free market ka Abdurrahmaan oo waxay wax ka qaban kartaa ma malaynayo qiimahooda ma dictate karayso laakiin waxaan maqlay inay cashuurta malaa soo socota la filayo dhowr bilood soo socda cashuurtayda waxa la yiraahdaa future baan u malaynayaa inay hoos ka dhigayaan waxaad iga warantaa maanta baarlamaanka wada arkaysa dood dhaqaalaha ka dhacday jawiga guud ee adu nin ganacsada wata jawiga guud ee dhaqaalaha dalkan Ingiriiska ka waran oo awalba dhaqaaluhiisu aanu caga badan ku taagnayn wallahi Abdurrahmaan oo adduunka wuxuu ku shaqeeyaa saadaalin marka dagaal iyo wax la galo waxaan interest rate ku kor u kacaa wax walba maciishada kor u kacaysa lacagta dulsaarka waa kor u kacaysa lacagta markaad gawadhi la iibsanayo waxaan la yiraahdaa interest rate ribada waxa jira wax percentage ilaa 5% ahead imika marka dagaal la galo nus baa lagu darayaanba leeyahay sanadkan bartamihiisa ilaa 6% bay noqon kartaa marka dadkii guryaha iibsanayay oo kale in saameyn ba ku leedahay dadkii guryaha iibsanayay cusba dadkii xitaa guryaha lahaa mortgage-koodu dhamaanayay markidadii ayaa kor u kacay cuntadii baa kor u kacday wax waliba shidaalka unbay Cabdurrahmaan ku fidayeen shidaalku hadduu kor u kaco inflationka waddankuna kor buu kacaya adigu waxaad leedahay shirkadda taksiyada ah oo gawaadhidana wad kiraysaa laakiin si haddaynu eegno Soomaali badan baa mahado ka xoogsata taksiilayaasha adduunka oo dhan ama Uber ha noqoto ama wax kale noqoto iyadoo nimka shidaalku kor u kacin suuqa Uber-ka oo kale waxa la lahaa uu soo xumaanaya cashuuro badan bay dawladdu ku soo rogtay taksiilayaasha dalkan Ingiriiska taayada maxaad nooga sheegi karaysaa wallahi taasina waa Soomaalidu horta darawaliinta aad bay u farabateen qof waliba wuxuu doonayaa Soomaaliya inuu taksi la noqdo Ingiriiska siiba waladan Uber-kina dhowr sano ka hor bay inoo yimaadeen ayaguna qiimahoodu ma wanaagsana darawaliinta lacag badan ma siiyaan xaaladdu waa iska alxamdulillah waanu dhowr sano ka hor saanu ahayn waanu dhowr sano ka hor baa waqtigu fiicnaa laakiin alxamdulillah waanu ladanay alxamdulillah daddoona waanu dhacmaa marka ma dhibaatada nimka dadka taksiilayaasha Uber-kii ay ka cawdaan ma darawaliinta badan baa mahado keentay mise lacagtan dheeraadkii ay Uber-ku ka goosanayaan waxa keenay inta badan waa darawaliinta badan darawaliintu markay bataana price-kii baa jabaya price-kii baa la isku erayaa dadka lagu qaadayay marka waa darawaliinta badan baa keentay darawaliinta badan aad baad mahadsantahay